erayo aan badnayn ka odhan doonaa kelimadaasi ku saabsan alfawz fi lxayaa. fawz, success, guul waa eray casrigan dambe aada loogu celceliyo, dhagihiinuna in badan maqlaan. ama dhaqaalaha laga warramayo, ama cayaarha laga warramayo, ama wax kale laga cid baa guulaysatay baa in badan maqashaan. su-aasha aan rabo inaynu isweydiina waxa weeyaan, goormuu qofka bini aadamkaa la odhan karaa wuu guulaystay? guushase maxaa lagu qiyaasaa? muxuu yahay miqyaaska dhabta ah ee fawska ama se guul successka maxaa lagu qiimeeyaa? haddaynu nidhaahno nolosha ayuu ku guulaystay qofku, noloshu waa intee? ma intan sanawaadkan adduunka la joogayaa, mise waa aakhiro marka lagu daro noloshu qofku noolaanayo o dhan? ma lagu qiyaasi karaa guusha maalka iyo mansabka iyo magaca iyo maamuuska uu qofku helo? kelimada fawz fi luga waxay idhahdeen waa najaatun min marhuub wa taxsiinun limarguub bay idhahdeen. waa waxaad ka cabsanayso ka nabadgeshid iyo waxaad raadacaynayso oo aada heshid. aw aldafaru bilkhayr maca xusuuli salaama bay idhahdaa. waa inaad wax hesho wixii khayrka ee wanaagaad raadinaysay, dhibtana ka nabadgeshid. idan qofka bini aadamka ahi gools tiro badan buu leeyahay, ama ahdaaf tiro badan. mar kasta uu hadaf xaqiijiyaba waxaa la yidhaha wuu guulaystay. ardayga hadafkiisa koowaad waxa weeyaan inuu iskuulka dhameeyo ama jaamacadda dhameeyo. maalintuu shahaadada soo qaato wuxuu leeyahy waan guulaystay, imtixaankii waan dhameeyey, waan guulaystay. ninka siyaasiga waxaa laga yaabaa hadafkiisu inuu yahay boos siyaasiya inuu gaadho. maalintuu kursiga fuulo waxaa la odhanayaa xisbigaasi ama ururkaasi wuu guulaystay. laakiin dhab ahaan goormaynu odhan karnaaba qofka bini aadamkii nolosha ku guulaystay? waxaan o dham waa ahdaaf marxaliya. waxay ku gabagaboobaysaa inaynu idhaahno noloshii waad guulaysatay iyo noloshii waad khasaartay, wax ka dhexeeyaa ma jiraan. simbal goalskan marka la isku wada daro hadaf baad nolosha ka leedahay. nolosha hadafkeeda haddaad asiibto oo meesha aad u socotay aada gaadhana waad guulaysatay, haddii kalena lama guulaysanin. walidaalik su-aasha waxay noqon kartaa, oo hadafkaan nolosha ka leenay markaa muxuu yahay? ma inaynu cunoo cabnaaba? ma in shahaadad la qaataaba? ma in lacag la helaaba? ma in magac iyo maamus la helaaba? life burbouskaagu muxuu yahay? hadafka aada leedahay, goolka aada nolosha maxaad u noosha? inaad maxay xaqiijiso? qofka bini aadamku waa inuu hadaf leeyahay, meel uu socdo uu rabo inuu gaadho. qof u nooli inuu wax cunaa ma jiro. noolo waa wax cunoo soo toosoo kac, dabeetana 60 sano markaad gaadho xabaasha ha lagu geeyo. that's not a life. nolol maaha taasi, qiimo ma samaynayso. waxaynu isweydiinaynaa markaa, hadafkaynu nolosha ka leenay waa maxay? si markaynu ku guulaysanana aynu idhaahno hebel noloshiibuu ku guulaystay, marka la waayana aynu idhaahno hebel noloshiibuu ku khasaaray. ila waa labadaa midun. haddaad nolosha hadaf ka leeday, meel aad u socota hadday jirto, meeshii markaad gaadhana waxaan odhanayna waa guulaystay. markaad gaadhi weydana waxaa la odhanaya wuu guul daraystay, muu guulaysan, success ma gaadhin. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay goorta la guulaystaa goortaytay. wuxuu kaloo inoo sheegay nolosha tan iyo hadafka laga leeyay wuxuu yahay. waxaa laynoo sheegay dadka inta guulaysatay iyo inta khasaartay. qur-aanka intaasoo aayadood baa ka soo arooray oo ka warramaya alfaa'izuun. intaasoo aayadood baa ka warramaya alkhaasiruun. waana macnaha dhabta uu noloshu leeyahay markaad labadaasi kala garato. rabbi subxaanahu wa tacaala markaa
nolosha iyo hadafkeeda iyo wax oo dhan iyo guusheedaba miqyaas baa loo yeelay. yani nolosha haddaanu jirin thermometer ama barometer ama wax lagu qiyaaso haddaanad haysanin, yani guriga dherarkiisa waa imisa, waa inaynu haynaa waxaynu ku qiyaasno. markaynu haysano miqyaas la saaro ayaynu isla garanaynaa dherarkiisu intuu yahay. laakiin haddii nin waliba isha ku eego wax saxa soo bixi mayso. marka wax la qiimeynayo wuxuu doonaba ha ahaadee waa inuu jiraa waxaad haysato oo barometers aad leedahay. markaad kaatigarayso waxaas waa la qiyaasi karaya, waa la gaari karaa inuu jiro. rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay kulu nafsi daa'iqaة اlmowt wainama tuwafawna wujuurakum ywma اlqiyaamة faman zuxzixa can الnaari waudkila اljanة faqad faaz wma اlxayaaةu اdunya ila mataacu اlguruur latublawunna fi amwaalikum waanfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wamin aladiina ashrakuu adan kahiira wain tasbiruu watattaquu faina dalika min casmi اlumuur. suuratu ali cimraan 185 186 labada aayadood isku xidhay rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kulu nafsin daa'iqat lmowt. wax kasta oo nooli geeruu dhadhaminaya, muntaha alxayaati dunya weeyaan baa la leeyahy. intaad doonto joog way dhammaanaysaa. wainamaa tuwafawna ujuurakum, waxa laydiin wafaynayaa laydiin dhammaystirayaa. adduunka waa laga yaaba wax yaryar oo min camalika inaad dhadhamiso, sawaan kaanat positive iyo negative kay doonaysa ha noqoto. waxyaabihii aad shaqaysay wax ka mid a hadday qadhaadhaydna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid a inaad ka soo dhadhamisay, hadday macaanaydna waa laga yaabaa nolosha wax ka mid a inay soo dhadhamisay. laakiin waxaa la yidhi taas iyadu way dhammaanaysaa, absolutely waad dhammaynaysaa. laakiin waxaa lagu dhammaystirayaa baa la yidhi camalkao dhan, wixii aad qabatoo dhan abaalmarkiisa waxaad wada helaysaa. inamaa tuwafawn, wafaa baa lagu isticmaalay. waxaa laydiin oofinaya, laydiin dhammaystiraya ujuurakum yowma alqiyaama baa ilaahay yidhi. maalinta qiyaame alxayaat اlأkhra, xayaat اlأkhraa aakhire markaynu gaadhno nin walba shahaadadiisa la siinaya. qalinjabintaadii adduunka intaad joogtay imtixaan baad saxaysay, papers baa lagu dhiibay. waxa laaliya waxaad adduunka ku haysoo dhan sideku doona ha ahaado. haddaad madax ahayd waraaqaad buuxinaysay, haddaad lacag haysatay waraaqaad buuxinaysay, haddaad faqiir ahayd waraaqaad nolosha dhammaanteed imtixaan bay ahayd aad ku jirtay. imtixaankaagaasi resultkiisii, jawaabtiisii waxaad helaysaa baa lagu yidhi maalintaad qiyaamahaysa soo taagto ayaa lagu dhiibayaa jawaabtii imtixaanka. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz. ninka qura guulaysta waa kanuu baa rabbi yidhi. naar ninkii laga dhufto, zuxzix, ninka naarta haf laga soo siiya, laga ilaaliyo, laga dorkiyo, oo waudkhila aljanna, janno la geeyo, kaas baa ilaahay leeyahy faqad faaz. miqyaas lfaws markaa waa kan. goormuu qofku guulaystay? wuxuu guulaystay markuu naar ka badbaado ee janno galo ayaa rabbi tilmaamaya. ama adduunka intaad joogteen waxaad guula ku sheegayseen oo dhami, wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay ku xigsiiyey. nolosha adduunyo waxay ahayd bidhbidhka lagu kadsoomo. nolosha adduunyo gebigeeduba bidhbidh lagu kadsoomo bay ahayd baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. aayadda ku xigtaa ilaahay markaa wuxuu yidhi waan idin imtixaamaya. xoolaha, nafta ayaan idinku imtixaamaya. gaaladaa laydinku imtixaamayayo ahlu kitaabka iyo waxaa la mid a war badan iyo mushrikiintaba adan kaiiran baa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi. wax badan oo idin dhiba, adyad badan baa nimankaa ka maqli doontaan baa ilaahay yidhi. wain tasbiruu watattaquu, sabirkii taqwada loo baahnaa haddaad la timaadaan waa casmi lumuur baa lagu tilmaamay. idan ayuha alikhwa, alxayaat dunya tantahi bilmowt. nolosha adduun wuu dhammaanaysaa, geeraana ku dhammaanaysaa. maqza alxayaa markaa waxa weeyaan huwa alibtilaa. tanaynu ku noolnahay barbowska danta laga leeyay waa in lagu itixaamo. tabaaraka aladii biyadihi lmulk
وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بإلهي أيكم أحسن عملا. أدونك وابتلاء إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أدونك وحلوها يوردم وامتحان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أدونك وامتحان وحانتكو امتحان انت وحاد قبرس. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وحانا لغوغو اتحاميا امتحان كالرسم قاهي وبالعبادة تكليف واقع وابتلاء لكن هو ابتلاء بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابتلاء قاسي هذه وجه دون يهقوي ماضو. قرآن كإلهي لبن نبي بك ورمى لبدا النبي با اسكو صفه لو شيغay laakiin quraanku labada nabi wuxuu inooga sheegay waa wax kala durugsan. nabi Suleymaan quraanka iyo qisaskiisa in badan baa maqasheen iyadoo laga waramayo inuu boqor ahaa oo afaf badan garanayay oo quraanjadu waxay ku hadlaysay garanayay oo mantaqa tayr shimbiruhu waxay ku hadlaan garanayay oo jinka loo sakhiray kuwa badda quusay iyo kuwa meel kale u boodaba bal kuwa le aqoonta maanta dunida taala ka sarreysa oo in arshu balqis laga qaado saba oo Falastiin la geeyo oo ilbirqsiye lagu geeyo technology-ga dunidu maanta ma awoodo. technology-ga dunidu maanta wuxuu awoodaa cod in ilbirqsiye lagu geeyo hadalkaaga milliseconds ayaa dunida tarafkeeda kale. laakiin sameecada ay hortaan la intu tuuro oo yana as a signal or electron loo tuuro xaga kale cidi kama receive garayn karto technology-ga wali ma hayno. laakiin nabiyullaahi Suleymaan alladhi indahu ilmun min alkitab ana atikaha muxuu yiri qabla an yartada ilayka tarfuk arshi ba halka laga tuuro xaga kale uu ka soo dhacay inta aan ilbirqsigaagu oo technology-ga inta leeg buu haystay. بل إلهي وحكبري ملكا لا ينبغي أحدا من بعدي وقرطيان أنيق الضبضي عندما والله يتحامل امتحان كي هرا وحو أركي إن أنو آدو قولي سنبو استريسيين ورن كرنا هدو إريقو صح نغضو وهو مركو لها إني أحببت حب الخير عندك فرده يوحي يا بهديسين ووقتي عبادين يرنا في السياق لو يريبها هذا قبل ودب غورغورا markaas ilaahay wuxuu ka dalbaday imtixaankan ka weyn in la mariyo oo ah mulka la yabaqi ahadan min ba'di. nabi Suleymaan ka waxa soo dhan agtiisa la dhigay uu guuleystay. ilaahay muxuu ku sifeeyay ni'ma al-'abd wa waritha Suleymaan wa waritha Daawud Suleymaan ma yahay soo waritha Suleymaan Daawud ووهبنا داود سليمان نعم العبد إنه أواب إلهي. نبي داود سليمان ما نصير نبي إلهي لما تنام حالي نعم العبد هي إلهي كتل ماما أواب إنوها هي نعم العبد. أوكي نرشي إلا ابتحامي وكو قوليستي وحلا سي درجة نعم العبد. قرآنك وحكا ورمي يا نبي كله نبي كله وح كلو إلهي قرآنك كشيء ما شرته إلهي إنه بكيو شيفي مو يعني. نبي الله أيوب قرآنك مالك استعاد كو أركته بكاء ما لقى ورمي. سنة النبي محمدنا حادثة علماء السؤال وريا وحي تلمام يسا طبعا هي سدات سندود إنه بكيو شيفي أو حنوسني ولا نعي. السيرة إلهي محكول سفي إنا وجدناه صابرا حكو حقا نعم العبد إنه أواب. سليمان وقول استبال إلى نبي سليمان نبي أيوب وقول استي لبدو ده امتحانه والله امتحانه كلا نوعه مد بيج كسياسة ده يملك جيه ما ملك حولها اللي ديبه كاس على وقت حامة
dabeetana wadadii taa laga rabay buu mariyay dhan inuu islaamiyo dad dhan inuu diinta soo wixii laga rabay buu fuliyay waxaana lagu sifeeyay ni'ma al-abdu innahu awwab ayub isaga inta quraanku inooga sheegay waa la itixaamay lafihiisa baa lagu itixaamo isagu xanuun iyo dhib baa ku dhacay waa jiifsaday waa la wada nacay waa laga tagay halkaas uu jiifay inni masariya shaytaanu bil halkaas uu ilaahay bariyay ilaahay wuxuu ku sifeeyay isagana inna wajadnahu sabira ni'ma al-abdu innahu awwab idan hadafka kama dambaystay waxa weeyaan ma xaqiijisay ilaahay adoonnimadiisii ha huwa imkaaniyaadka ilaahay ku siiyay ku xidhanta imtixaanku dadka barba u haysta in khilaafo la dhiso inaynu ku imtixaamino kuma imtixaamin ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay la yukallifu Allahu nafsan illa ma aataaha balayhi nafna ilaahay ma imtixaamo wuxuu siiyay mooyaane inta lagu dhiibay adiga nolosha lagaaga soo beegay beejka ma dooratid ilaahay baa doora inaad madax noqon iyo inaad miskiin noqon inaad maal qabeen noqon iyo inaad faqiir noqon adigu beejka dooran maysid laakiin adigu waxaad dooranaysaa saad u maamulaysaa beejkaaga jawaabaha imtixaanka marka lagu dhiibo maxaad ku qoraysaa waxaad ku qoraysaa baad ama ku faa'iisaysaa ama ku dhacaysaa labada nabi quraanku uu tilmaamay labadaba ilaahay wuxuu ku sifeeyay ni'ma al-abdu innahu awwab labaduba waa guuleysteen midi wuxuu ku guuleystay inuu bukaankiisu ku safro ilaahay taacad ugu ahaado saa quraanku inoo tilmaamay midina wuxuu ku guuleystay dhan inuu hogaamiyo oo jin iyo insiba leh oo shimbir iyo xayawaan bale oo ciidamo ciida ka badan wato walidaalika ayuha al-ikhwa cibaada inuu imtixaan ku nahay cibaada ayanu imtixaan ku nahay inaynu ilaahay caabudno cibaadadu waa min al-fitra qofka bini aadamka ah laakiin liman tuwajjah baad ma sha taallon yaad u jeedinaysa xaqiisa